وزير الدولة وزارة مالية الصومالية عثمان عبد الله السحلديد oo maalmahan safar shaqo ku joogay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta kulan ballaaran oo la yeeshay madaxda iyo howlwadeenada wasaaradda maaliyadda ee gobolka Togdheer ku sheegay in ay wasaaradahan dhaliilsan yihiin dakhliga cashuureed ee gobolka isla markaana loo baahan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga cashuuraha ee gobolka waxaana ka mid ahaa wasiir dawlaha hadaladiisii qayb muhiim inaad kaga jirtaan Somaliland inuu noqdo qaran kamid ah qaramada adduunka oo dhan oo jira sida aad u shaqeysaan ayaa inta kale oo dhan ku soconaysa dakhliga Burco waanu dhaliilana ma shaqa xuma ma waxyaabo kala jira aad baan u dhaliilana runta fiican salaada 7 subaxnimo markay tahay wasaaradda iyo wasiirkaba waxaana loo keenaa dakhligii dalka oo dhan maalin dhow hadii ilaahay yiraahdo waxaan ku soconaa wax walba inay electronic noqdaan waa magaaladii labaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cashuuraha bariga waa inay improvement sameeyaan wax walba qorshe ku socdaan iyo nidaam magaalada inta leeg iyo dakhliga soo gelaya laba isla maaha waxaanu doonaynaa inaad isugu tagtaan intaad isugu tagtaan kuwiina khibradda leh iyo kuwa cusub intuba u dakhligu kordho gobolku muhiim weeyaan hawsha aad qaranka u haysaan aad iyo aad waan idinku boogaadinayaa hawsha aad wadaan waxaanu doonaynaa waxa la yiri faraska waxa jadalka loogu dhuftaa soo ma ahayn inuu ka sii badiyo wax ceebaanu idinku haynaa ma jirto aan dakhli yaraan ahayn waxaanu idinka digaynaa ceebaha dhaca ma aha mid idinkeedu ku socota waa mid aanu meel walba shaqaalaha aanu kala hadalno waa guubaabin waa digniin waxa kale oo mudana Saxardiid uu muddada ku sugnaa magaalada Burco kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka kuwaas oo ku adkeeyay adkeynta nabadda iyo ka qayb qaadashada horumarka gobolka Kays Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.